xogaye ku-xigeenka guud ee xisbiga wadani kana mid ah guddiga nabadgelyada xisbiga mudane Jamaal Jaamac Xamuud ayaa markii ugu horeysay waxba kama jiraan ku tilmaamay warar maalmihii u danbeeyay soo baxay oo sheegaya in ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ay ku hawlan yihiin horinta colaadda ka taagan deegaanka shidan ee gobolka Sanaag isla markaana mid ka mid ah labadaasi beelood ay ciidamada Puntland gacan siiyeen sidoo hadalka u dhigay xogaye ku-xigeenka wadani oo Arbacada 29 January warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal iyo raatoona lahayn isla markaasna maamulka Puntland aanay marnaba iman karin deegaanadaasi ka tirsan gobolka Sanaag isagoo xukuumadda Somaliland ku eedeeyay inay ka gaabisay fulinta go'aamadii ay soo saareen guddigii fulinta ee Cerigabo ilaa haddana aanay jirin wax tallaabo ah oo ay qaaday xogaye Jamaal waxa uu intaasi ku daray in daminta colaadda deegaanada shidan mas'uuliyadda koobaad ay leedahay xukuumadda Somaliland cid kale oo arrintaasi u taalaana aanay jirin sidoo hadalka u dhigay waa been nimanka sheegay arrintaasina been bay cad bay sheegeen wax dhici karana maaha warsangeli baan iman waanu diidnay Umar baan iman ku cid noogu xigay baan iman waanu niri jooji arrinta adigu jooga waxay arrintu ku dhamaanaysaa labada saddex reer oo wada hadla waa waxaan jirin way Puntland ma iman mana iman karto mana imanayso waxay u taalaa meeshu waa Somaliland waxay u taalaa Somaliland say wax uga qabato way xukuumaduna waa qabtay xukuumaduna meesha waa qabtay waxay ahayd inay fuliyaan go'aankii ay soo saareen guddiga nabadgelyada Cerigabo go'aankii ay soo saareen oo kaasa bay ahayd inay fuliyaan oo ku dhiiradaan waxa kale oo dhan waa yaay mar hadday ogaadeen go'aankaasi markuu soo baxay rag baa lagu dhaariyay oo la yiraahdo lahayn oo ay sheegeen iyagu oo tageen nimanka Yoonis Muuse nimanka Maxamed Muuse laga weydiiyay inta waxay sheegeen shidan inaan lahayn bay sheegeen marka waxay ku soo saareen go'aanka wixii iyaga ay sheegeen baa lagu soo saaray annana tiibaan leenahay warfuliya dhinaca kalena xogaye ku-xigeenka wadani kana soo jeeda bariga gobolka Sanaag waxa uu iska fogay eedeymo loo soo jeediyay oo sheegayay inuu fidmo iyo dhibaato ka dhex wado labadaasi beelood isagoo oo sheegay in go'aanka deegaanka colaaddu ka dhacday ay u tageen isaga iyo mas'uuliyiin xisbigooda ka tirsan uu yahay go'aan ka soo baxay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro aan shirayta ku shaqeynayay xisbigu waa inuu hawsha galaa waa aniga waan galay xisbi ahaan baan ku tagay odayga waxay diray gudoomiyaha diray aniga daamir baan nahay waxaan ku shaqeynayay labada dhinacba inaan kala dab qaado markaan arko qolada haday qolada gardaranteen waxaan leeyahay wardi waa gardaranti hadii qolada kala tiraado waa gardaranti laakiin maanta waxa keenay shirka ay qabteen odayaasha Muuse Ismaaciil iyo labeentii ee guddidii hawshan loo xil saaray ee inay ka hadasho ahay ay qabteen oo yiraahdeen Jamaal waa fidmo wale oo wuxuu shidan ka baxa hadda ma kula shidan ka baxa xamse xirsaxayd wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaan geli channelkayaga YouTube-ka ama dooro bogaggayaga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka